iyadoo shalay guud ahaan dalka Somaliland ay ka qabsoontay doorashada isku sidkan ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada ayaa shacabka ku dhaqan magaalada Ceergaabo qaarkood waxa ay dareenkooda ku aadan waxyaabaha ay ka filayaan doorashada waxa ay la wadaageen CBA TV waxaana ay fariimo u direen musharaxiinta natiijada sugaya ee golayaasha kala duwan ee kala ah gobolka iyo degmada doorashada shalay iyo waxyaabaha ay indhahoodu qabanayeen ayay ka dareen celiyeen waana kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya doorashadii shalay si fiican bay dhacday asalkuna waa nabadgelyada haddii nabadgelyadu ku dhaaftay ilaahay inuu mahadnaqayna marka hore ilaahay mahaddaale nabadgelyada nasiiyay ee nagu dhamaatay qodobka labaadna waxa weeye ninka nasiibkiisu ka qaadaya nasiibkiisa ha tuuro ninkaasi wuxuu ordayay ilaahay wuxuu qalin buhelaya ninkaas waxaan leeyahay wixii soo bax ku qanco nasiibkaaga ilaahay uu hamdaqay ilaahay nagu dhaafay nabadgelyada aynu haysano soo nidaam ay socdeen dadku cid isqabsatay cid ma jirin si nidaamsan bay socdeen kuyiga si fiican lagu wax dhibaato ay kama jirin dadku waa u bislaaday waxaan way yaqaanino si fiican bay u socotay fariintaad xildhibaanada u diraysaado aan kala saarsaarayn maxaad leedahay dhamaantood cod ku dhamaado waxaan leeyahay dhamaantood ku qanceen wixii soo bax kii dhacay ka helaba ha qanceen wallahi si qurux badan baa loo codanayay dadkuna waxay heegan u ahaayeen inay codeeyaan safaf dhaadheer lagu jiro bacadkoo la taagan yahay waxa bacadka loo taagan yahay wax kale ma aha in macnaha si fiican loo codeeyo muhiimaduna ugu weyn waxay ahayd in ilaahay nabad inoogu dhameeyo ilaahayna nabad inoogu dhameeyo alxamdulillah haddaan ka hadlo ra'yigay ku aadan doorashadii ka dhacay shalay magaalada Ceergaabo ee isku sidkanayd waxay ahayd doorasho taariikhi ah oo sumcad iyo sharaf u soo hoosay qaranka Soomaaliland guud ahaan bulshada Soomaaliland ilaahay mahad waxay nagu dhacday si xor ah oo xalaal ah halkan waxaan bayaan uga dirayaa dhammaan xildhibaanada kuwa soo baxa iyo maxaan ku dhahay dhacaba waxaan oranayaa horta kii soo baxaaba waa kii gobolka ama horumarkiisa ama Soomaaliland sharafteeda kor u qaadi lahaa waxa la dardaarmayaa kuwa maxaan ku dhahay laga guuleysto kuwa laga guuleystana waxaan leeyahay nasiibku mar dambe idin saacidi doonaa maxaan ku dhahay dalka nabadgelyadiisa ilaaliya waxaan leeyahay baadiyaabo waa bahdeen qaabkii doorashadu shalay u dhacday doorashadii halkii shalay isku sidkareed ee golayaasha wakiilada deegaanka waxay u dhacday qaab nabadgelyo waxayna ku dhacday jawi aad u wanaagsan iyadoo ay dadku dooranayeen masiirka qofkii ay ku aamini lahaayeen shanta sare soo socday ee golayaasha wakiilada deegaanka anigu shalay waan codeeyay waxaan doortay xildhibaankii aan u maleynayay inuu masiirka ama igu matali doono golayaasha deegaanka iyo wakiilada waxaan yaraha kale uga mahad celinayaa guddiga komishanka doorashooyinka qaranka oo ay hawshii ugu badan shalay ku dhacday iyo waliba ciidamada ammaanka oo yana aan halkii shalay hawl yaraysan oo yana amniga aad u sugayay doorashadu wax si wanaagsan bay u dhacday waxaan leenahay xildhibaanada soo bixi doona la dooran doono halkii la wacshi kadib halkii lagu dhawaaqi doono inay noqdaan xildhibaano aan dalka iyo dadka iibsan ay noqdaan xildhibaano qaabkii loo soo doortay masiirkii ummadii soo dooratay ka talaya ka duwan waxayna kaga duwan tahay sidii kuwii hore ahaayeen iyo kuwana hadda ay yihiin gaar bay kala tahay waayo qofku intuu kaarkiisa qaato ayuu meelsha kaga soo codan jiray qof waliba halkii uu ka qaatay ayuu ka codeeyay waxa la yiri arina laba nin ka wada qoslaysiiso cidii soo baxday waxa ila tahay ballanqaadkii ay ummadda u qaadeen inay fulinayaan qoladii hore naga tagi jirtay intay nala sii ballamaan dib nooguma soo noqon jirin kuwan waxaan leeyahay haddii aad la mid noqotaan kuwii idinka horreeyey saan cod u bixinaynaa waaba yar tahay shalayto populationkuna waa badnaa sida ay u dhacaysana sifa sharci bay ahayd dadku leenkooda haysteen kimisho si maxaan ku raasay sifa sharci bay dadka arka uga qabanayeen waxaan oran karaa waa doorashadii ugu qiimaha badnayd ee ka dhacday dalka Soomaaliland waxa shalay ka qabsoomay magaalada Ceergaabo ee Soomaaliland doorashooyinka isku sidkan golaha wakiilada golaha deegaanka doorashadaas oo si fiican u dhacday shalayto anigu ka codeynay dhalinyarada ahaan dadkii codkooda dhiibtay oo codeynay xildhibaanada ninkasta xildhibaan ku qanacsan xildhibaan buu doonayaa waxaan leeyahay xildhibaanada soo baxana waxaan leeyahay magaalada xog qabta waddanka xog qabta dhacdaana ku qanca hadda soo baxdaana ku qanca xora oo xalaala man shalay anigu uu ahaa footar bixiye codkayga qofkii aan u arkayay inuu macquul ku yahay golaha deegaanka iyo golaha baarlamankaba baan si xora u dhiibtay waan ku faraxsanahay waxaan intaas raacinayaa shacabku bisayl siyaasadeed iyo bisayl dimuqraadiyadeed intaba way gaadheen Somaliland xorta Somaliland dimuqraadiyadda dhammaantood waan salaamayaa guul baan u rajaynayaa intii soo baxday ee candidateska ahaa musharaxiinta ilaahay ha sulansiiyo dariiqa saxda
xil baa idin fuulay baan leeyahay liisaska hordhaca baa la hayaa iminka natiijo lagu dhawaaqay ma jirto nin waliba goobihii intuu ka helo buu tirsanay saadaashaas baa socota waa hordhac maaha natiijo rasmi ah waxa la hayaa natiijada rasmigaana waan sugaynaa ninkii markaa natiijada rasmiga ah hordhaceeda haya guul ka haya waan hambalyeynaynaa ka dhacayna tartanku waa ka dambe cabdirasaaq sugulle CBA TV Ceerigaabo.